horaa loo yidhi ninna dhuunuu kuu dhex joogaa ninna dhaqashuu kugu dhabar jabay telefishinada madaxa bannaan intooda badan ee ka howlgala Somaliland ayaa agaasimayaashooda oo maanta si wadajir ugu hadlay magaalada Hargeysa ayaa gaashaanka u daruuray tiro yar oo ka mid ah telefishinada madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Hargeysa oo dhawaan guddiga COVID-19 iyo xukuumadda Somaliland ugu baaqay inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhaxaysay guddigaasi ee wacyigelinta bulshada Somaliland iyagoo ku sababeeyay joojinta wada shaqaynta wacyigelinta qadar lacageed oo loogu talagalay isla markaasina ay waayeen agaasimayaasha intooda badan ay maanta magaalada Hargeysa ku hadleen ayaa sheegay in mulkiilayaashii dhawaan hadlay ee sheegay inay ku hadlayaan afka telefishinada madaxa bannaan ee ka howlgala Somaliland inaanay metelin taasi bedelkeedana ay qayb ka noqon doonaan wacyigelintii isla markaasina ay wadi doonaan aanay jirin wax ay joojinayaan wada shaqaynta guddiga COVID-19 ee Somaliland waxaad ogeydeen in ay odayaal aanu ixtiraam u hayno oo kuwa ugu waaweyn warbaahinta ay shir jirayd qabteen daraad arrimaha ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa in dhaqaale warbaahintu ay lahayd meel kale la mariyey ama in ay dhaqaale laga doono maanta xaaladdan dalku ku jiro ee cudurka COVID-19 arrintaa waxaanu doonaynaa inaanu guud ahaanba shacabka Somaliland iyo cid kasta oo ay damaqdayba aanu raaligelin buuxda ka bixinno runtii maanta waxaynu ku jirnaa xaalad adag waxaynu ku jirnaa xaalad dalkeennii ay ka jirto masiibo caafimaad oo dadkeennii ay xaalad kale iyo ay waajaheen sidaa daraaddeed waxaanu doonaynaa arrinkaa horta inaanu raaligelin buuxda aanu ka bixinno halkan waxaa fadhiya xubnihii telefishinada iyo warbaahinta ee majoritigoodii baa fadhiya runtii kuwii ugu naxariista badnaa ummaddan iyo dadkan ugu naxariista badnaa ee ugu turaalaha badnaa ayaa fadhiya waana kuwa maanta ay isu keentay damiir ahaan inay ka xumaadaan oo ay ka gilgishaan waxaa dhacay waxaanu leenahay odayaashu annagoo ixtiraam u hayna runtii arrinkaas arrin meelka dhaca ayuu ahaa sidaad ka warqabtaanba maalinkii daraatoole warbaahinta waxaa ka hadlay niman odayaala oo muxtaram ah oo aanu qadarin u hayno oo ku hadlay afka TV-yada madaxa bannaan goobtan aynu maanta ku sugannahay waxaa ku sugan majoritigii TV-yada madaxa bannaana waxaanu markaa halkani ka caddaynaynaa odayaashaasi ku hadlay afka TV-yada madaxa bannaan ee shanta TV ahaa in aanay magacayaga metelin ee maanta TV-yadii Somaliland majoritigoodii indhihiinnu ay wada arkayaan sidaasi daraaddeed taas waxaanu ku caddaynaynaa in aanu horta majoritigii halkan ay joogaan laba waxaanu ka cudur daaranaynaa ereyadii naxliga lahaa ay ka dhawaajiyeen xaaladdan maanta taagan ee dhiisha iyo dhaliisha leh ee dhibaatada maanta adduunyada ina soo waajahday ay u baahan tahay gurmad in aanaan TV-yada haddaanu nahay kula qabin in aanu dhaqaale COVID-19 ku raadinno dhimashaa taalla sidee baanu dheef u raadin karaynaa caqliga wanaagsan iyo damiirka suubani waxa uu dhigayaa xaaladda adag in la iskala dabaasho taana waxaanu kula soconno ma aha wixii xukuumaddu ugu talagashay iyo guddida loogu talagalay iyada ayaa mas-uuliyaddeedu ay saarantahay sida ay u qaybinayaan annaga TV-yada madaxa bannaan ee halkaasi joogee 10ka ahi kulama qabno in aanu maanta dadka xanuunka u dhintay ee qabriga jooga axan in wax laga weydiiyo ceeb xaashaa lilah waa ka xunnahay dhaliisha iyo dhagxumadaasi ciddii ay ka soo yeedhay intii daayihiinnu ay arkaysay bay gummadooda taallaa iyagaana mas-uulka ah waanu idinka taxsiyadeynayna waxaan maalin kasta ka warbaahin ahaan iyo ka telefishin ahaan aanu baahinaa dad ehelkayga faamligii Somaliland shacbigeedii ah oo u dhimanaya iyo kuwa kale oo xanuunkii xaaladooda lala tacaalayo cisbitaalada u yaala iyadoo xaaladaasi jirto annaga koroonuhuna lamu balamin ka wariyeel ahaan iyo ka telefishin ahaan iyo ka ehelkaygaba wuu nagu dhacayaa waanu soo mari karaa ilaahay naga haya waxaan se rabaa inaan xasuusiyo saaxiibadayda hadlay mulkiilayaasha telefishinada waa ganacsatada dhaqaalaha soo bixiyay iyo iyagu waa simayn wax alla wax u dhaxeeyana ma jiraan dhaqaalaha ganacsatadaasi soo bixiyeen inaan ku gorgortanaana maanta ma yaalaan wacyigelintana waanu sii wadaynaa haddaanu leenahay falaxashoo kala durka xukuumadda Somaliland oo ugu horeeyay madaxweynuhu
wasaaradda warfaafintu iyo xeer ilaalintuba waxaan halkan ugu baaqaynaa maalinta qarankani adag yahay xaaladda adag ku jiro inay kala gartaan oo ay fiiro gaar u eegaan ninka qarankan u dhaaminaya iyo ninka qarankan ka dhaansanaya arrintaasi may ahayn milgihii saxaafadda may ahayn waa arrin aan u cudur daarayna iyagana oo macnaha hoos martay aanan taageersanayn ka saxaafad ahaana ay naga go'an tahay mar kasta inaan bulshadeeda u adeegno aan iyaga u taagnaano wixii dhiban aan iyaga ka hor istaagno wixii dhaftooda aan iyaga u raadino Aydaruus Maxamed Caynaan Gobjoog Hargeysa